فاسألوا أهل الذكر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر ماشان أهل الذكر يهبطان ضد فانكدوناي هو ما أكتب تسحب ما يشد فنكا لو سؤال دكا صوماليا مرحلة كصوت دوناي وضد فانكا هذا ما علم ده يحوينه وحويري والأنيجا نمباهن هذا كده بيان لكيون أنيجا هذا ما يلفي علي مرة ويدرج نمباهن يا لكيون كنت لما ما درج لا ما شاء الله لكن درج ما ده لما وعاوي بشيء مركب حويري قالها بدأ إيه جماعة هل سنة ما يحب عليه محايا لي وحواي إني حق وضع صوم مرتبط فيها وحي أركان بإني يسول لي إياه ما لويتو مدى كسوس عليه سلحلي هيا يقول لغني يا ودنو تبي يا ورثو الدنيا يلا عق لا أبغى والله أقدر يموتها بدي ما شنب قالوا كي يوم ودنا كقاعدة بمتى ودني والراعي والله يبغى يسوع من هذا يسوع إن شاء الله تعالى صراحة فالله غير بيوري هذا أنت سداد بقول سيانا إلهي أطعم بالهيب أطعم هيب الله واحد يسمعون بعضه إلهي قبل ما نيجي وادم حتى وأنا ركتين أنا أرام المرمى لحوينكم وعارض هذا أركي جرتين وقت مركا هذا مدحوينان رجوينان كقبائل وذلك صوماليا بليدين runtii taageerada aad muujiseen lamida idinka rabay ahayd aad iyo aad aad nagu mahadsantihiin qalbigeena isla socon maalintii dhaweyd aniga axzaabta xisbi oo la diiwaan geliyey oo si ku meel gaara loo diiwaan geliyo xisbiga midnimada iyo dimuquraadiyadda oo aniga guddoomiye u ahaan rabaa inaan xafiis meeshaan ka furo haddii marka la furi diido xisbigii la milmileeyo ee qabiil iyo lagu meereysto aniga waxaa waaye halkan doorashada dambe waa imaaha ka maqnaama marka midana waxaa laga rabaa cabdiwili maxamed cali gaas marka inuu xisbigayga horta ou ka furaa la rabaa meesha haddii kala tartankaa la gela taasna waxaa waaye waa risaalada xisbiga iyo axzaabta aan ka socon dawladda hadda jirta oo federaalkana runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa wax istaaku lahay noo dhigta haba yaraatee ma jirto sidaa darteed marka waa ku dheeraaday mar labaad waxaan idin leeyahay hambalyo soo dhaweyntii aad mataqaanaa noo samayseenna runtii anagaan ku baaqadoonino madaxweynaha waa soo laalaabadooya puntlandna waxaad ka galeen inay qaangaartay madaxweynihii horaa wixii laga raba sheegay madaxweynahan kalena soo dhaweynaha lagu ekeysiyey aadaan u mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka kala caruurtooda iyo reerkoodu shaqaalaysiinaya wareadaha baantayaa lagu sheekeen beentayaa lagu sheekeen soomaaliya toosaay waxaan anigu hadin qaban lagu dhismaayo anigu hadin waxaa la keenay infasil baa la keenay diidii weyn baa la keenay saldhig baa la keenay waa horumar waa la diiday maxaa loo diiday aaminaantii dawlad waa meesha ka baxday haddaan dawladda la aaminsaneen hadday dahab keento xaar ku noqonaya dahabkaas
hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa la dhisaa in la leeyahay maaragtay muddo 1 sano 2 sano ku dhow arrintaas $2 milyan lagu cuno wax dad haba yaraatay isugu yimidna ma jiraan waa qandaraas u socda madaxweynaha iyo kooxdiisa maxaa yeelay wasaaradda maaliyadda waxaa la leeyahay ergadii aa kala tegayay intaasoo lacaga dir waa iska socotaa cid isugu tagtana ma leh hal maalima la isugu tegaalkii maalinna dadkii ayaa xurmad darro iyo sharaf xumo inta kala tegay oo la kulmay ka kala tageen hadda sababta loo soo nooleeyay markii la iska dhaafo waa Faarax Cabdulqaadir dartiis Soomaalidana raga 275 in 76 looga dhigaa mid kale corruption ka marka ma haaso ka bilowdaa sidiisa 176 looga dhigaa